madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa wareysigiisa kaga hadlay arrimo dhowr ah. madaxweynaha ayaa tilmaamay hadalkiisa in dad gaar ah ay si qaldan u turjumeen, waxana uu sheegay dadkaas inaysan fahmaynin afka mayga ama si gaar ah loo cunsuriyeenayo. Shariif Xasan ayaa beeniyay warka sheegaya inuu maamulkiisa magacaabayo ra'iisul wasaare, isagoo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri: Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Arrinkaas arrin waxba ka jiraan maaha. Ra'iisul wasaare ma bal soo hadal qaadan, waxaan laga hadlayn in la sheegana runtii wax kale noqonaysa. Marka waxaan aaminsanahay dadka qoray wax kale u jeedaan aysan sheegi karin. Marka waxaan isleeyahay ama luuqadani markaas ku hadlaya fahmi waayeen ama ujeedo kale ka leeyihiin. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inay dhawaan hawada gelin doonaan raadiyo iyo telefishin ku hadla afka mayga. wuxuu tilmaamay inay arrintan kaga gol leeyihiin sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen afka mayga. marka insha Allah luuqada fahmi waayeen luuqada constitution ka qora maay maxatriya leeyahay insha Allah in la baraan ku dadaali doonaa. waxaan u sameyn rabnaa hadii la hay'adna TV oo maalin habeen maalin ku hadlo say dadka dhan ay u bartaan bidineel kariim. marka ma dhihin aniga waxa la i weydiiyay su'aal la i weydiiyay ku timid su'aashana waxa la i weydiiyay rashafalka shameel sameeyna. waxaan idhi xukuumadda markii la ansixiyo ayaan rashafal sameynayna. laba wasiir ma sameyn karno, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga, laakiin wasiirada kale intii ku magac leh inaan sameyno kuwii hore badnaa anaga aan lahayn aan soo yareyno si ay u helaan wasiiradu wasiir kale oo wasiir ku toosan si ay u helaan line minister si ay u helaan. marka su'aashaas aan u dhigay aniga meel prime minister magaciisa lagu soo qaadayna ma jirto. haddii prime minister aan magacaabayo waxaan dhihi lahaa tidis mana waalni hadda aniga mirkayga waa qabaa xukuumadda prime minister soo dhisaan dhihi lahaa. xukuumadda anaaba dhisoo waaye anaa rashafalka sameeyo waaye. marka prime minister maamul goboleed inuusan prime minister lahayn ani waan ogahay. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isagoo kulamada leh mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda Soomaaliya.